kadib buuqiyasa waxaan maanta ka dhashay fadhiga ay yeesheen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golahaasi mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa mudanayaasha golahaasi la hor keenay go'aankii uu dhawaan madaxweynaha Soomaaliland uu ku kala qaaday in mar la wada qabto doorashooyinka madaxtinimada iyo golaha wakiilada fadhigaas ay ka soo xaadireen 59 mudane oo kamid ah 82 mudane oo ka koobay aqalkaasi ayaa waxa cod aqlabiyada ku taageereen go'aanka madaxweynaha la raaco 52 mudane halka 5 mudane ay diideen mid kamid ah mudanayaashaasina uu ka aamusay gudoomiyuhuna aanu codeynin xildhibaan baa fadhiya konton iyo laba waxay ogolaatay sidii madaxweynuhu ku soo jeediyay qodobadii soo jeediyay isku dhan 5 xildhibaan waa diiday xildhibaan waa ka aamusay go'aanka sidaas waa sax ku yahay Baashe Maxamed Faarax oo warbaahinta la hadlay kadib codeyntaasi ayaa waxa uu sheegay in golahoodu maanta inta badan isku raacay in la taageero go'aankii dhawaan madaxweynaha Soomaaliland uu ku kala qaaday labada doorasho tiibaan ayidnay labada doorasho in la kala qaado waana la kala qaaday marka waxa weeye labada doorasho isma qaadi karaan waqti badan baa saaman qaybsigu qaybsanaya marka sidaa daraadeed waxaanu raacnay in labadii doorasho laga bilaabo maanta la kala qaado tii baarlamaanka dib loo dhigayaa waxa loo gudbinayaa maxkamadda sare markii go'aanku madaxweynaha u tago dabeedna marka waqtigeeda waxa loo gudbinayaa guurtooda iyada sheegaysa waqtiga lagu qaban karo waxa weeye waad ogeydo habeenkii dhaweed ictiraaf raadinta madaxweynuhu ku casumay in lagu shiray xamar iigad inay tiri midnimada Soomaaliya waa la taabtaan iyo xuduudihi ay ka hadleen waa la cambaareeyay madaxweynuhuna wuu cambaareeyay Soomaaliland waa cambaareysay golahuna wuxuu qaraar ka gaaray in la cambaareeyo go'aanka ka soo baxay uu yahay xaq darro Soomaaliland mid dhaqasa ay ahayn Soomaaliland ayaan ilaa 91 kamid ahayn Soomaaliya sidoo kale Baashe Maxamed Faarax oo wax laga weydiiyay qaar kamid ah xisaabta siyaasadda dalka oo iyagu ka soo horjeestay in la kala qaado doorashooyinka madaxtinimada iyo golaha wakiilada saameynta iyaduna ay ku keeni doonto go'aankan ay maanta ay wada gaadheen golaha wakiilada ayaa waxa uu yiri xisbiyada golaha waxa u matala waxa weeye xildhibaano 25 xildhibaan baa wadan leeyahay 5 xildhibaan baa diiday intii kale xildhibaanadii way ogolaadeen marka taasi waxay ku tusaysaa arin lagu midaysan yahay inay tahay oo goluhu ku midaysan yahay labadii doorasho inaan mar la isla qaban karin Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic Star TV Hargeysa